العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. walaalaha muslimiinta ah ee Soomaaliyeed, waxaan idin soo gudbinayaa salaan kal iyo laaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meel kastaad joogtaan, dalkan Kenya iyo dibaddiisa iyo dalkii Soomaaliyeed iyo meel kastood joogtaan, waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku nabadgeliyo. waxaan u soo fadhiistay halkan in aan ogeysiis horoo baxay xoojinaya aan caawa halkan ka soo jeedsho. hadda ka hor 2 sano iyo bar ilaa 3 sano abaaradood baan waxaan walaalada ogeysiiyey in Nairobi xaafadda Donholm ay walaalada qaarkood ay ka fureen oo asxaabtayda ah markas at-taqwa oo boarding islaami ah oo caruurta waliba wiilasha aanu iclaaminay in qur'aanka lagu xifdisiinayo, lagu barayo iyo culuntiisa. caawa marka laga soo wareegay 2 sano iyo bar, marka koowaad waxaan walaalaha ugu bishaaraynayaa in 2 raac oo qur'aanka la xifdisiiyey, intoodii xifdisay 2 jeer shahaadooyinkoodii la siiyey, oo qoladii ugu dambeysay ay mar dhoweyd qalinjabisay, weliba musaabaqadii ramadaankii dhoweyd oo aan madallatu lmadaaris alqur'aaniya oo fi Kenya ay qabatay. ardaydii ugu cadcadaa, ugu xifdiga xoogganaa, waxaa qayb ka mid ahayd markaskii aan idin iclaanshay. xaqiiqatan waa lagu liibaanay. caruur badan, qaar dibadaha ka yimi iyo qaar gobolada Kenya ka yimi, iyo dhammaan way lahaayeen. 100 arday ku dhowaad baa ku jirtay. waxaa ruucii ugu dambeeyey qalinjabintooda ka qayb galay wiil Canada raggii laga keenay ka mid ah. Abubakar baa la dhahaa. si xooggan qur'aanku u xifdiyey, culunta kalena iyo kitaabadana kuma yareen, iyo carabiga. maanta ayuu Canadana ku laabtay aan idinla hadlayo, isagoo qur'aankii xambaarsan, tarbiyadii islaamiga xambaarsan. waxaana filayaa meeshuu tago inuu imaam iyo sheekh iyo ka noqon doono. sidoo kale magaalada Garissa, inan yaroo weliba la kafaalo qaaday, Cabdinaasir, sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankii waa u sahlay, waa xifdiyey, waa xoogsamay. maantana wuxuu ka mid yahay dadka aan ogeysiiska soo wado maxay ahaydee hormuudka u noqonaya. waxaa kaloo ka mid ah Cabdullaahi oo Wajeer laga keenay, oo markasu taqwa uu kafaalo qaaday oo agoon ahaa. asagina waa xifdiyey qur'aankii, waana xoojiyey. ilaahay fadligiisa weeye. markasu taqwa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nagu guuleeyey. walaalada aan u soo fadhiistay stuudiyahana oo iclaankii ugu horreeyay 2 sano iyo bar ka horna, ilaahay subxaanahu wa tacaala naguma ceebayn. kaalintaan ka filayeyna way ka soo baxeen. caawa marka waxaan halka u fadhiyaa ardaydii dhammaysay taxfiidka oo qur'aanka xifdisay oo ilaa iyo 10 ah. waxaan loo bilaabayaa machad diini ah oo maxay ahayday culuntii islaamka lagu barayo. waa machad islaamiya, markazu taqwa alislaami. haddaba ciddii danaynaysa caruurtooda in ay diinta islaamka maxay ahaydayay u bartaan, ama gacan aamina u galaan, ama doonaya in ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadkooda tarbiyadooda ugu dhowaadaan, waxaan mar labaad ugu yeerayaa ka faa'iidaysta markazu taqwa.
waa ragaan ku kalsoonnahay eydi aamina ah mirahoodiina aan aragnay. markaska machadka diiniga ahi wuxuu qaadanayaa arday tiradoodu kooban tahay. ardayda qur'aanka xifdisay ee magaalada Nairobi joogta meel kastay ka joogaan ama dibadaha naga soo gaari kartaa, waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhowaada. sidoo kale ogeysiis saddexaad oo maxay ahayd ayaa kaabaya ogeysiiskii 2 sano iyo bar ka horeeyey aan bixiyey, baa waxaan leeyahay markaskii taxfiidiga ahaana arday cusub buu qaadanayaa. mar haddii raacii hore ay ka aflaxeen in badan, haddana kuwa cusub baa la qaadanayaa. waxaa sidoo kale mudan inaan sheego machadka diiniga ahi isaguna waa boarding weeye, waa daakhili weeye, waa xaroonayaan caruurta. lama arkayo ilaa ay wax xoogan ka bartaan 3 bilood mar ama 4 bilood mar. wixii daruuri ahoo soo kordhaa waa la idinla soo xiriirayaa insha allah. insha allah kusoo dhowaada. ilaahay subxaana wa tacaala caruurta ha idinla xifdiyo, ha idinla tarbiyeeyo, ha idinla koriyo, ha idinla qabto. guulaysta. ilaahay subxaana wa tacaala shar iyo shaydaan allah idinka qabto. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.